بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يوتيوب كأبوان شولي. فضلا صاحب أديان نوع عصبته سبسكرايب لايك شير كومنت النوع عاوية ما أنت هدي إلهي قدر سبحانه وتعالى وحان رباه وحير أو تاريخ هرقة أو أنكسو مري حلقي أنكتر سنة كوحدة إفتين وزارة وحبرشادة إيا بربارينتا شيك عجيب بدن أنا ربا ما أنت إنا إنك شيكي شيكداس waxay ahayd fanaaniintu waxa lagu tilmaamaa dadkii oo wadankan burburkiisa ka taliyay inay yihiin wax kalena looguma tilmaameen waxay ahaayeen wax oo doros wax la yiraahdo ama saadaalin abwaanadii Soomaaliyeed ee dalkan kuwooda ugu qaalisanaa oo ku jiray agaasimihii waaxda barbaarinta kooxda iftiin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta agaasima oo ka ahaa abwaan professor سعيد صالح أحمد حفظه الله وبربارية سرب وكسلامة معلم سعيد صالح أحمد حفظه الله السجع سمي رواية لديه جري حد إيه حد كله رواية عجيب بدنا إهد دركنا واسكن نبضان كجرني وقت جاس سديتن سديد دي إني هذا ملاينا سديتن سجالكي سديتن سديد دي إني هذا ملاينا ولي لما تكيدي سديتن سديد دي وياه الرواية اللي يرى حد كله وسمي بروفيسور سعيد صالح أحمد أيا أناقو عيل جالياشا كنمت oo barnaamijkii barbaarinta anaga ceel jaalayaashana muusigan ka tumayni oo waxa macallimiinteeni waa muusig waa lagu badnaa meesha dad badan joogay organka waxa lagu tumayay iikar gaabsha CD organka gitaarkana badow ahay bad tira nuurdo Abdullahi Sido على التورة حرقوا والو بدنا كتار كان وحتم اللي موين بيسك وحتماي مذي غوري نور حاج سجن ولا شقي يفت نور حاج نفتكيس مركا سدح راسنا بيسكي تماي بتريق وحتماي مرسل بتيي جيري يعني دبك الريح هاي أنا خيبت الدمبت أنا خيبت ودم بيسو قدال برباري قدال كسوق قلي أنا وبحن كسوق برباري ماشي عصاد أنا عن كلا قبصدي الجالياش يمالهاس يبرنامج شدان يريركا هذا يحط كلا يوحسل إيدي باي أوكي برنامج كهذا يحط كلا أنا مركب أنتماي أنا ECD استاد إيكرا مركب نحجو دوغوانا نالد جوغي عبد الله سيدو كتار كنو تماي عبد الله عمر جيدي غوري ابيس كنو تماي بسباسا بونغا تماي برنامج كي حدا يحد كلا برنامج كاس وحان حتى بربارياشي دي وينوليين واجوغان بروفيسور سعيد صالح احمد كبلو بشير علي حسين سيد خليفه محمد عبدو سالم الله ينحرس عبد القادر السنكو هو اللي انت waxaa jooga Cabdirasaaq Axmed Geedi aakhiro waxaa jooga Daar Ali Jumcaale waa nool yahay waa jooga laxamada baasaa wax ka sameeyay Maxamed Cabdi Sheekh Arab macallinkeyga macallimiinta barbaariyaashu isna ku jiray waa wuxuuna ka tirsanaa kooxda iftiin barnaamijka hadda iyo had kale ayaa la dhigay كاسنا واسك من دليرو اسكيرنا واها waxaan la yaabay barnaamijka dhan safka heesaaga wiilasha iyo gabdhaha saas loo sameeyay waxa la sameeyay gacantan wala isla gelinaa inta ninkan kalena gacanta inta soo gelina saas la soo ciriirinay adduunku waa ciriiri heesii xataa hadda waxba kama xasuusto Allah anoo heesii xasuustaa igu fiicnaa lahayd برنامج يابدنا وهاي
waxaan lee ciriirigan iyo dadkiioo qaxa iyo oon iyo haraad bay u dhinteen la leeyahay war madaafiicdii iyo rasaasta ka gambada riwaayadan maxay sheegayaan leh marka mana fahamsani micnaha riwaayadba ay sheegayso ilaa riwaayadaba waxay odorosaysaa haddii saan lagu sii jiro waxa ka imaan karo oo Soomaali ay riman tahay Ustaad Saciid Saalax Axmed ma sha Allah waxaan dareemay hadda markaan aan nin weyn noqday oo aan wax fahmay ayaan waxaan fahmay riwaayadii 88 aan fiirsaday ayaan hadda laakiin xeeri fandal maray kala dhaceen 2000 aan ku fahmay maxay taray 2088 dhacdadii ahayd ayaan fahamkeedii iyo riwaayadaas macnaheedii waxaan fahmay 2000 soo dhawaaway fahamkaas ma jira faham soo daahay waa istaadka khayr Allah siiyo riwaayadaas wuxuu odorosay Soomaaliya hadda sida aad hadda ku taagantiin aad ku sii socotaan dadkuna saasay noqon doonaan xarxan waa loo dhimanaa qaara ceel biyo iyo isku dagaalo saf la kala noqdo la islaayo riwaayaday kamid ahayd waxa kaloo kamid ahaa in hayb qabiili inta loo kala baxo dadku ay rafaadaan qax iyo silac badan la maray alla maxaan qax soo maray wixii oo dhan oo riwaayadaas ku jiray practicamentan u soo arkay marka fahamkii oo riwaayadii waagaas waxay sheegaysay fahamkeedii hadda la ku fahmay 2020 ka lagu fahmay 2000 nin wax fahmay maxaa fahmay 2000 maxaa dhul dheera u dhaxeeya 88 riwaayadii ahayd haddaan 2000 la fahmay 12 sano kadib aan wax fahmay waxaan marka dareemay maskaxday markay yareed waxba inayna fahmayn maskaxdu markay iqaan gaarto oo adii 30 jir ay gaartay le inaan wax fahmay okay waayahay meeshaas waxa ka soo baxay wax la yaab leh riwaayadaas hadda iyo had kale waxaan la yaabay mararka qaarkood waxa cabsiyay leedahay dhijina waxa riwaayadba ma hadalkana kor looma dhehayniya hoosaa loo dhahay war macalinka muxuu nagala maagay waxaan riwaayadba ma ahayn macnaha fahamka inta aan ka fahmay aaba saas u liitayba waxay iga taagneed muxuu macalinka nagala doonay barnaamijkan hadda iyo had kale la leeyahay waxba soo ma kordhinayay ileen caqli u ahaa waxa dadka la baraayay war hooy waxa aad wadiin haddaydan joojinin waxaasaa ka dambeeyo dhici doona ayay ahayd micnihi calaa cumuum adduunya waaye maanta wixii aan 88 soo marnay oo riwaayad ku soo marnay oo soo dhignay wixii la odorosayay oo sax ah ayaan arkay oo anoo maanta qof weyn oo wax fahmaya oo maskax Ilaahay siiyay ayaan waxaan fahmay macallin Saciid Saalax Axmed 80 wixii uu ka digayay ayaan 2000 fahmay 80 hadalkaygu u fiirso macallin Saciid Saalax Axmed wixii uu ka digayay 80 2000 aan fahmay 2000 ayaan fahmay wixii uu diidayay in la sameeyo oo lahaa war Soomaaliya ka jooga waxaas wax dan ah maahe wixii uu ka digayay ayaan waxaan fahmay 2000 waayahay barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij aad u cajiib badan ceel lagu diriray oo la isku baabi'iyay dhiigii meesha daadsan yahay meyd iyo dhaawac dadkii yahay lugaysti iyo qaxi iyo rafaadkii laamiga lagu lugaynayo iyo maxaa la dhahaa hawdka lagu lugaynayo riwaayadii dhan waxaasay ka sheekayneen markaasaa heesaagii garbaha la haystaa saasaa waa la liicliica socod lama kari karee aan saan isu garabsano camal miyaa wax saas camal ay ahayd heestii hadda ma xasuusto dadkii oo saas u liicliicaya heeska dhanba wax action oo hees oo action loo qaado la dhaqdhaqaaqaan arki jirnay heeskan wax harakaad ma loo yiri macalinka saas leeyahay Allah ahaado bis hal isriix riixale heeska dhan isriix riixaasoo ku bilaabana isriix riixaasoo ku dhamaanay markaasaanan wali fahmin ileen ujeedada macalinka oo dorosay ujeedadu macalinku kala ha waxa uu sheegay Soomaalida casharka uu u diyaarinayo Soomaalida uu wax fahamsiinayo waxay ahayd in Soomaaliyay hayb qabiiliye waxaan aad hadda wadaan war hoogaas iyo halaagaas ka dambeeya war waxaas naf ma leh ka hara
ayuu ahaa macnihi ma fahmin laakiin waqtigaas anigi iyo dad badan oo hubka soo qaatay oo dagaalamayba wallahi inayna waxba iga duwanayn hal xabba igama duwanayn waayo Soomaalidii lala hadlayna iyagay ahaayeen hal xabbana kama fahmin hadday wax ka fahmeen way ka joogi lahaayeen hoogga iyo dagaalka iyo dhibaatada iyo halista iyo qaraxa iyo rafaadka iyo rasaasta way joojin lahaayeen aqli kale wax lagu xaliyay ma la waayay waa yaabay Soomaali marka barnaamijkaas hadda iyo had kale wuxuu isoo xasuusiyay kooxdii iftin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iyo macalinkeena agaasimaheena barbaariye sare Saciid Saalax Axmed Professor Saciid Saalax Axmed barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij sida uu u odorosay macalinka professorka sidoo waaga u odorosay oo sax ah dhacdadeedii aan kor tagayo soo arkay aniga ka mid noqday dadkii qaxay waxaan arkay wixii dhacda ahaa oo waagaas uu macalinka professorka ka digayay oo lahaa war Soomaaliya waxaas ku hoos jiray ka jooga wixii uu lahaa uu ka digayay dhacdadeedii oo sax ah oo run ana soo arkay maantana ka sheekeynay 90kii ayaa waxa bilaabatay safaaradaha in bambo lagu tuuro bow war waxa yeeray maxay ahaayeen caaw mushkilaad timid qarax waa bamba dhacday bamba yeertay ana ala dhihi jiray maxay noqotay 91 in rasaastii iyo gacantaba la isla galo askartii iyo macawisleyda inay iska hor yimaadaan wax fiican aan u maleynayay US yaa timid waxa warka Soomaali u maleyn ma mar kale inay jabhad u sacbin doonto aniga aqligay waxaan ka mar kale Soomaali mar kale uma maleynayo ma aaminsani mar kale Soomaali iyadoo dawladnimo u jeeda in jabhad socoto inay u sacbinayso mar kale ma aaminsani waayo aan saas u leeyahay mataqaan micnaha waxaan hore u aragnay iyadoo dawladinoo taagan tahay in jabhad loo sacbiyay oo la yiri soo dhawaadaan arkay hooggi iyo halaagii laga dhaxlay aan arkay isaga ma wulina aan laga dhamaanin isaga wulina horyaal marka Soomaali waxaan u maleynaa kulay horta reer hebel Soomaalida haddaan ilaaho qaale haddaan ilaa Soomaali reer hebel way caabudaa cibaaday ka dhigteen reer hebel haddaan ilaa talo ma ku dambaabaya maya ficlan maya waa ku adkaysanaa maya waxaan aaminsanahay war dadka inay rabbi caabudaan laga rabo war ilaahay baa xarimay in dhiig muslim aa gashay ninka loo sheegay oo culimadu u wacdisay oo quraanka loo fasiray oo axaadiista loo sheegay haddana waliba ku adkaysanaa reer hebel reerkayga ku soo duulay aniga fadhi waxba iima tare hubka waa inaan qaataa anigana aan weerar taga hadduu wali leeyahay qofkaas ma la dhigi karaa muslim waa ilaahay caabudo war ilaahay waa diiday in la dagaalamo oo la isdilo war Soomaaliya reer hebel ka hara waa dhowr jeer la idinku sheegay wacdiya la idinku sheegay riwaayada la idinku sheegay hees iyo muusiga la idinku sheegay tafsiirka quraanka la idinku sheegay waji kasta la idinku sheegay walina macnaa waxa taagantiin reer hebel hadaan nahay marka sheegaysid nin baa ku awr kacsanay hatta hadii xaqiiqo ka ahaa lahayd waxa isdhiilay dhaaf nidaam lagu mootin karo waayo wadankeena hatta hadii aan isdhiilay nidaam lagu mootin karo oo wax lagu hagi karo waayo haddaan isdhiilay hatta waxba saas uma caayeen oo saas uma dhaliileen oo saas ma ila ekaadeen war aniga waxaad caabudeen reer hebelaad caabudeen Soomaaliyeed ka istaghfiruleysta horta kow waxaan idin leeyahay reer hebel waa caabudeen waxaad u noqoteen dad u hoggaansamay meeshii laga rabay in ilaahay amarkiisa loogu hoggaansamo Soomaaliyeed reer hebel waad caabudeen waxaan idin sheegaa kow reer hebel ka istaghfiruleysta labo in aad u dagaalanto qof iyo qaran u qaadana naftaada ka ilaasho markii saddexaad kan qaa'inka ah Allah maxaa Soomaali indhaha ka xiran yahay hadii reer hebel la sheego nin baa ku awr kacsanay nin baa rabo inuu sandanada ku koro wuxuu leeyahay aniga haddaan nahay reer hebel reer garbaa iska taabtay waxaan isma u dul qaadan karno
وريال ودول قادنا وعسكم دول قادة كرو ما ضحاي بنتي سوي ضبوا ربا إنه أو لغها يقعناها أو قعان أسق الدراديس أو قرع يسبن يمين يبرع أي دعوة رصاص لوريدو ورأني هدان رير هبل أهي ما ضحاي وعو كله أنك هدان رير هبلنا سلطنة هدو كرو والله بالله تلا يريدك مفرايان والله بالله تلا نك ما تقصعبين يسد لا لا رير هبل واي أقسم بالله العظيم يريد لك مفراي بس قدها كجرا لقدها مجوج ومقيا بناك كراد أقسم بالله العظيم والله إنا بيشين تذكر هبلك قوة شيو أقسم بالله العظيم لغة يقعنا هذا أوجي موجي والله إنه نحرف كوينين هذه حنون كم هيسد هذه رير هبل هدول قدها حماس صلاني جنيا أسكول ذي ميا والله هذا كوجي أقسم بالله العظيم وهوجي Soomaaliya reer hebel adiga buraanbur iskuuridin buraanbur iskuuridine buraanbur iskuuridin mingisi buraanbur ani sawa ani agteyda ka yiin waxaasna waa isugu kaymid adiga iskuuridin waxaas dadka ku dhaco oo duulashaas jinni oo beenta ah oo reer hebelka ah adiga la iskuuriday maana wallahi asiga saldanadaas iyo kursigaas uu rabaa inuu kugu koro adiga jinni iskuurida asninka kursiga uu kugu koroya berina irida ma uqsim billahi alazim ma laga furay نكر الشيكة كان رداي كان محلا كان وينك أو جلولي كان رداي نفتر كيس أقسم بالله العظيم على ترى كوجو على ترى وهو فنان أطاره أو قرح كو قابل سنة يريد كوجو قديله مجوج له أقسم بالله العظيم السجع هاي مجوج ده نك يريد جوجنا أبدا مكافور كرا أصلا أنت لقى سو أمرين مجوج نقال ولا ورنيه هاي سوجين dadkana hoojin adiga ilaahayna agtiisa ku karaama beelina waxaan ku sheegaa ninka rabo saldanada reer hebelka haduu asaga noqonay ha noqday adiga ka leex haduu hoogay asaga hoogay adiga ka leex waxaan ku sheegaa hadii saldanada la koray adiga kulay korimaysa asaga koray haduu rabo saas asaga isqarxiyo ee adiga joog yow ninka reer hebelaan isku nahay darteed adiga hoogin والله هدي لبض لغوت كاغو أن أقسم بالله العظيم طريقة لقى بروفك وأكمرة هذا لامي أو لبض كسعة هذا لامي كل الكيس كله بينس أقسم بالله العظيم إنه كوجو جنينا إلهي وجاه أصلا واي مقلها تو رشة هاي له عر وأوجو جنا هاي له عر هاي له ما أنت جواب أنا أوجو جنا باورك كان لغها أنا قدرت أوجو جاي باورك أنصارنا وأوجو دجا عر له والله ما هاي ما نديه دونا ما نقول هاي لأنه وحن كله خير هبل وكوهكتي نيو كجوج وبرسنتاي رير هبل برسنتاي نيو جوج قال هذا وحوغا وحناقي مركله يوتيوب ابوان شول صاحب داد نغو عصبتاي سبسكرايب لايك شير كومنت نغو عاويه سومالي وين قال هذا حوغا وعرودي waxaan arkay khaladaadka badan ee aan arkay dhacdooyinkii aan arkay ayaa dib iigu soo dhacay raalli ahaada salaamu calaykum waraxmatullaah